السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كنا الله وبرنامج كوحل كأنك كسر دياري أنا جو إنجنير عبد العزيز مع حسن. ما أنت برنامج كوحن قاعد إن شاء الله تعالى فاكشن فاكشنز يعني قاعد دونا أنت فاكشنز كأن برنامج كيس هروب جديد عن واحد كونسبت كود كبحينه فاكشن وحليره سان أصلا شكلنا فاكشن وحل الله عقب كمية instruction كاسو كوف لنا يهور جارة تصالح فاكشنز وحكاية عادية برنامج كأنها تقيقة بيسو qayb walbana ay ku qabato shaqo gaar ah tusaale waxaad sameynaysaa program la yiraahdo calculator calculator-ka sameynayso calculator-ka afar shaqo ugu muhiimsan aan si fudud ugu soo simple program oo sameynaya calculator sameeyo afar shay ugu muhiimsan waa ku dar ka jar ku dhifo afarta operation mid walbo shaqo mid walbo si gooni ayaad function shaqo gooni ugu qabanaa marka addition ko kale function ka abuuraysa subtraction shaqo walba gooniya ka dhigaysa waa kala saaraysa waa qaybis wuxuu ku sahlaa marka inaad si fudud aad qalad ugu soo hesho tusaale program ku ran gareysay qalad error ba ku qabsaday tusaale waxa ku shaqeeyay 2 4 ku dar 82 ku soo saar 2 4 ku dar meeqa la yiraahdo 6 inuu ku soo saar soma isla marka automatically meesha ka qaldan waa fahmaysa qaybta ku darta waxaa si sahlan u soo hesho marka qaybta ka qaldaneedo ah qaybta ku darta waa iska saxaysa marka labo waxa aad u fududaanaysa programkaaga in korkaaga more space badan ka cuni maayo oo isla markaa fahmaysa space badan muu baahnid labo si fudud ayaa qalad ku soo heli kartaa intaas uu ka saacideeya waa badan yihiin intaas ku soo koobayna laba loo qaybiyaa waa built-in function iyo wax la yiraahdo user defined function built-in function maxalla waa functionada already loo define gareeyay built-in functions waxa kamid ah wax la yiraahdo printf built-in functions waa la access gareeyay iyadoo loo maray header files tusaale printf markaan waxaano header file aan printf ku shaqeynayso header file maxaa waa sidaan ku soo sheegnay hash include std input output hijo kale printf waxa la header files ka saa u maraysa si kugu shaqeyso printf scan f sidoo kale soo kugu shaqeeyo wuxuu xiriir leeyahay header file ka oo la yiraahdo std input output.h okay aan u maana marka programkeena labadan program rabnaa inaan ka shaqeyno qaybta programka ugu horeyso waxa laga rabaa in aad gelino program xisaabinayo square root waa naqaanaa tusaale 25 ayuu user soo geliyay 25 square root ka hadii laga saaro waa 5 program noocaas camal sheegay anagoo saan u asaas gareeno marka function la yiraahdo square function waxaan u baahanaanay waxaan dhahnay markii la rabo in la adeegsado built-in function waxaa loo maraa header file waxaa lagu access gareeyaa si oo kugu shaqeyso header file square function marka maxaa header file u ah waxaa header file u ah header file lagu magacaabo library lagu magacaabo math.h aan ugu faa'iideysanayna si aan square root function so function kaas noogu shaqeeyo okay aan soo kicino barnaamijkeena oo la yiraahdo devc++ bilawno bismillah kan waxay naga saacideysaa inuu noo shaqeeyo printf functionada qaar inuu noo shaqeeyo ay naga saacideysaa okay hash include waxaan rabnaa anaga inuu noo shaqeeyo qayb xisaabaad ah ilaa waxaan rabnaa inaan xisaab ku shaqeysano Soomaa math.h kaliya maahan square root maahan waxa kale oo noogu shaqeey karaa power waxa noogu shaqeey karaa wax xisaabaad qaabilsan inta badan library lagu magacaabo math.h ayay ku jiraan okay inta main waxaan baahnaanay waxaan abuuranaynaa laba feerayaabo lagu magacaabo a b waxaan ku qabsanaynaa userka numberka soo geliyay enter any number soo geli alena userka number walba noo soo geliyo waxaan noo sameynaynaa scan f %d %a userka numberka soo geli waa noo qabtay waxaan rabnaa b waxaan noogu shubtaa numberka user geliyay square function kan loo adeegsay function aan oo shaqeeyo maxaa naga saaciday library-gana naga saaciday oo ah math.h okay maxaan gelinaynaa ay wixii kale square root ka saar kadib maxaan sameynaynaa ii soo daabac
maxaa lasoo daabaca a square root marka laga saaro waxaa lagu shubo b aa lagu soo daabaca marka ama waxaa dhigi kartaa square root of a is waxa weeye percentage d comma a comma b. Okay, aan save gareysano waxaan ku save gareysanaa root dot c aan keena marka tusaale waxaan soo gelinaynaa 100 meeqa square rootkeeda ah 10 inuu 10kaas noo soo saara rabnaa. The square root of 100 is 10. waa maasan yahay aan mid kale ku baroweyno waxaan ku baroweynayna haddana 49 square root of 49 meeqa waa 7 isaan qiyaasayo. Okay, square root of 49 is waa 7. programkoodana ugu horeyso qaybtana ku xalin. Okay, programka labaad muxuu noo sheegaa? programka labaad waxaan rabnaa program swap noo sameeyaa to string anigoo adeegsanayno function lagu magacaabo copy function. swap markaa sameynaysa copy function adeegsanaysa waxaana inta aan kaleynana library lagu magacaabo string.h wixii oo math waan soo aragnay adiga inta kale si isticmaalaya insha Allah taala. marka waxaan ku tusaynaa stringna waxaan ku soo qaadanaynaa copy string. tusaale magacaaga aad soo gelisay iyo magaca saaxiibka adiga waa in magacaaga waa in lagu copy kariyaa magaca saaxiibka ka saaxiibkaana la siiyaa magacaaga. tusaale aan sameyno hal mar waxaan declare gareysanaynaa 3 variable oo lagu magacaabo abc aan iska lahno jar. Okay, waxaan sameynaynaa aan isku copy gareynaynaa. Okay, waxaan declare gareysanay 3 variable lagu magacaabo abc ayaan declare gareysanay c. Okay, waxaan leenahay userka inuu soo geliyo enter your name magacaaga soo geli aan dhahnabo enter your name magacaaga soo geli userka aan dhahno enter your name magacaaga markuu soo geliyo /n. Okay, userka markuu magaciisa geliyo function gates la yiraahdo ku qabsanaynaa waa leeyahay soma. Okay, haddana userka aan dhahno printf enter your friend's name magaca saaxiibka soo geli. Okay, kids b magaca saaxiibkiisuna waa soo geli soma. waxaan rabnaa inaan copy gareyno waxaan rabnaa inaan adeegsano function copy la adeegsano kaasoo noo sahlayo magacaas magacuu soo geliyay magaciisa waxaan rabnaa inaan ku copy gareyno magaca kale. waxaan ka faa'iideysanaynaa functionka lagu magacaabo star copy waxaa naga saacidaya marka inta string.h librarygaas ayaa laga helayaa marka aan dhahno inta math ka bedelno maadaama isticmaal rabno string.h aan dhahno marka string.h kan wuxuu naga saacidayaa inay noo shaqeyso inaan laba shay aan isku copy gareyno soma. Okay, aan adeegsano functionka strcby waxaan ku adeegsanaynaa c waxay ugu copy gareysaa a wuxuu ku jiro waxaan ku copy gareynaa c star cby markaas waxaan leenahay a na waxay ugu copy gareysaa b star cby b na waxaa ku copy gareysaa c. tusaale a wuxuu ku jiro c ugu shub. Okay, a wuxuu ku jiro waxaan ku shubnay c a waa faaruq sooma a oo faaruq marka b wuxuu ku jiro waxaa ku jirta a oo faaruq already marka b wuxuu ku jiro waxaa nagula shubay a. Okay, b soo faaruq man c wixii a marka hore a c ku copy gareysa markaan waxay ugu copy gareysaa b. marka haddaan daawacaynaa
printf your name is s slash n ide your friend's name is percentage s. Okay, yaanu sida a b maxaa rabnaa userka hadduu soo geliyo first name inuu noo qabto inoogu koobi jira tusaale cali aan geliyo kanna maxamed aan geliyo your name magacaaga in laga dhigo maxamed ka saaxiibkaa magaciisana in laga dhigo cali aan rabnaa soo ma your name is Muhammad your friend's name is cali marka hore magacaaga cali waayo markaa maxaa lagu bedelay maxamed kanna maxaa loo bedelay maxamedkana waxaa la siiyey magacaaga laga dhiga calina waxaa laga dhigay magaca saaxiibka maxamed oo ahay adaa lagu siiyey magacaagana waxaa la siiyey saaxiibka. Okay, wax badan ayaa lagu sameyn karaa. Mid kale aan ka tuso intaan naga tirtir waxaan rabnaa magacaaga in reverse gadaal lagu sameeyo. Okay, anigoo adeegsanayna star ref waxaan sameynaynaa magaca gadaal inuu akhriyo magaca soo gelisay waxaa la sameeyey in uu gadaal magaca gadaal in loo soo akhriyo isla magacaagii daawac cali aan geliyey maxaa rabnaa inuu soo baxo ila inuu soo baxa rabnaa ila waa magacaaga oo gadaal loo akhriyey annagoo ka faa'iidaysanayno marka string.h waxaa jira library badan oo la yiraahdo oo library function badan oo la isticmaalo sida star reference star copy waxaa jiro in la ogaado inta magacan star link wax la yiraahdo tusaale waxaa soo gelisay intuu yahay iyadoo lagu ogaanayo variable-kan inta tira ah soo gelisay tusaale magacana soo geliyay inta xarafo ka kooban yahay la ogaanayo inta hore ugu jira d inta marka d intana percentage d intana d tusaale cali meeqa number ugu kooban yahay cali waa 3 xaraf soo ma 1 2 3 saddexdaas waa inuu soo saaraa 3 intuu ka kooban yahay xaraf walba ku sheegaya intaan ayaa kusoo gabagabeynayna casharkeena la xiriiray bit function insha Allah ta'ala week soo waxaan qaadan doonaa user defined function. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.